السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaa ka hadlaya Axmed Cabdilaahi Warsame. waxaan la hadlayaa dhammaan ummadda reer Somaliland meel kastoo joogaanba, dhalinyaro iyo waayeel iyo haweenba. waxaan marka hore taageero buuxda anigoo ku hadlay magaca gurba joogta beelaha mataanaha Arab iyo Garxajis, Samaroon, Dhulbahante, Warsangeli, Gabooye aan taageero buuxda u muujinayaa jabhadda dulmidiid ee uu generaalka u yahay Generaal Caare, hoggaanka siyaasadeedna u yahay Caseel Cabdiqaadir. waxaan ka hadlayaa arrimaha ka socda waddanka ee cadaalad darro leh, ee xasuuq maato buuraha Sanaag ee Daalo ay dawladda labada korneel hoggaaminayaan Muuse iyo Maxamed Kaahin ay ugu geysteen shacabka masaakiinta ah. Caare haddaannu shacabka beelaha Garxajis weyne nahay, taageero buuxda ayuu naga haystaa, waannu taageersannahay, ka mid baannu nahay sidii uu shalayba ugu dhawaaqay Boqor Faysal. waxaan la hadlayaa xubnaha golaha siyaasadda ee Somaliland ee dawladda Muuse Biixi qaar ka mid ah. waxaan la hadlayaa in adeerkii Boosmire oo intuu soo fadhiistay shir saxaafadeed kaga hadlay Caseel Cabdiqaadir. Caseel Cabdiqaadir aasaaskii jabhadda ayuu ka mid ahaa Sacuudi Arabiya. waxaa nool Ismaaciil Buuba, Maxamed Xaashi Cilmi oo Hargeysa kula jooga. inaadan wadaadid ilaahay maxalisa wuu dhintay, duqsi waa dhintay, waad weydiinaysaa. dhaqdhaqaaqii SNM iyo dagaalkii ilaa galbeed ilaa bari wuu ka dagaalamay. halka aanay labada korneyl ee aad u shaqayseen ag fadhidaa aanay ka dagaalamin oo taariikhdooda la hayo. taana wax mujaahidiintii ka jawaabi lahayd way joogaan. adiga ma aha boosow, ninka ka jawaabi karaa waa Axmed Mire Maxamed Nuux, ilaahay cimrigiisa raajiyey. Caseel Cabdiqaadir ciidamadii 8aad iyo 2aad ninkii haystay buu ahaa. Caseel Cabdiqaadir galbeed halka uu galbeedaysa isagii Cabdiraxmaan oo Cali labadii nin haystay bay ahaayeen. taa waxaan ka gudbayaa Caseel. waxaan kaloo u gudbayaa oo aan raaligeli ka bixinayaa hadalkaa uu in adeerkay Boosmire Maxamed Nuux uu ku dhawaaqay. waxaan kaloo u gudbayaa aflameerada, nimanka aflameerka ah ee beesha ka dhashay Garxajis ee ag jooga Muuse Biixi ee aan xilalka ahayn, ee uu ka midkeeyey Axmed Cali Waracadde, ee uu ka midkeeyey Siciid Sulub, ee uu ka midka yahay Duur, ee aflameerka ah ee ku mamay in ay xil weji kasta u maraan. waxaan leeyahay magaca reerka maanta guddigii gacan libaax ayaa xukuma. jabhadna Caaraa u ah, nin kale uma aha. waanaannu taageersannay, taageero buuxdaannu ku taageersannay. waxaan guubaabo u dirayaa shacbi weynaha Garxajis. waxaan hambalyo u dirayaa shacabka gobolka Sanaag, gaar ahaan buurta Daalo, oo aan ku hambalyaynayo sida sharafta iyo karaamada leh ee ay jabhadda u qaabileen, uguna taageereen, ula socdaan. waxaan leeyahay annaguna waa idin berber taagannahay, waana la soconnaa. waxaan ku soo gebagabaynayaa dhammaan dhallinyarada reer Somaliland meel kastoo ay joogaanba, waqooyi galbeed oo Hargeysa ah, Boorame, Burco, Ceergaabo. waxaan leeyahay ka kaca mudaaharaada. shalay ugu dambaysay shaqo qaran wixii ka dhacay waa arkayseen. wax idiin soo socdaana ma jiro. waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo. waan idiin soo ducaynayaa. gurba joogta haddaannu nahayna taageero buuxda ayaannu jabhadda dulmidiid taageersannahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waana ku soo noqon doonaa haddii la yidhahdo mar iyo 2 iyo 3 iyo 4ba. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. iyo annagaa reer hebel ah, annagaa
waxaad ku faanaysaa reer hebel inaad ku faanto waxa kaaga qurux badan inaad qaranka ku faanto, inaad Somalilandernimada ku faanto, inaad caalamka ku faanto, inaad qoyskiina ku faanto. qoyskiinu qoyskan kale la'aantii waxba ma noqonayo. wax allaala iyo wuxuu sheegayaana ma jirto. waa jaahilnimo, waa aqoon darro, waa caqli xumo inuu qof weyn oo mudakar meel la soo fadhiisto annagoo reer hebel ah. markaad fal fulinayso eed arrin u dhaqaaqayso waa inaad ka fikirtaa arrintani waxay keeni doonto. tacaare waxa weeyaan qofka bini'aadamkii wax waa tirsan karaa. anigu caare waxaan u arkaya nin wax tirsanaya. hase ahaatee waa qof ku celceliya inuu Somalilander yahay. laakiin haddaad dee Somalilander tahay inaad dalkaaga iyo dadkaaga xabad u quudho, inaad ummadaada isku kiciso, waa nasiib darro wey. taageerayaashiisa waxaan arkayay dad badan oo taageeraya. marka inaad wax taageerta waa okay, laakiin maxaad taageeraysaa? waxaad taageeraysaa qof waddankaagii cadowgiisii koobaad hoos galay oo hub ka soo qaatay oo ku soo weeraraya gurigiisii. ceerigaabuu kasoo uyi weerara. ceerigaabaa isagaa u dhashay, anigu umaan dhala. ceerigaaba waxaa ku dhimanaya waa raaskiisa oo keliya waxaa ceerigaaba ku dhimanaya. marka caqliga siiyey inuu dadkiisii iyo dalkiisii weerar ku soo qaado, yani rajada laga sugayo ma fahmin. hase ahaatee kaadi badana waa loo gogol badiyaa. dowladdu waa inay la hadashaa, waa in la weydiiyaa wuxuu tabanayo. waa haddii uu iman karayo in lagu soo dhaweeyaa waddankiisa. haddiise uu diido waa wixii kale lagu soo hoyn karaa in lagu soo hoyaa. waa in dalka laga difaacaa. waa inuu khalkhalka uu waddanka ka wado iyo dagaalka badheerhka ah waddanka la soo galay waa in looga jawaabaa. wax taageer, laakiin waxaad taageertaa dee wixii macnihii qofka bini'aadanka ahe noole aakhire iyo adduunkaba wuxuu u tabcadaa inuu faa'iido helo. dagaal aad dalkaagii iyo dadkaagii ku soo qaado maxaad ka faa'iidaysaa? dad waxaan arkaya lifeka soo qabsanaya oo leh ar haddii la qaxo dee meel walba waa laga qaxiyo. reer hebella way qaxi, kana u qaxi. waa run, reer hebella way qaxi, adna waad qixi. laakiin isweydiintu waxay tahay markaad fal samaynayso waa inaad natiijadiisa ka fikirtaa. maxaa kuu soo kordhaya? caare ma isku day ma qabsan karaa Somaliland? maya, qabsan karo, mana keeni karo. waa haddii aad istiraahdo caara Somaliland oo dhan qabsan karaya, macnihii waxaad muujisay inaanad garaad lahayn, inaanad caqli lahayn, inaanay garasho kugu jirin. wuxuu qabsan karaa ma jirto. wuxuu soo werweerari doonaa sanaagna reerkiisa unbaa ku dhimanaya. ceerigaabuu soo galo ummaddu iska fadhido, dad baa ku dhintay. faamiligiisii unbaa ku dhintay, dad jilibkiisiibaa ku dhintay, dadka reerkiisa ahbaa ku dhintay. xitaa dee reer kale qof kaloo reer Somaliland hadduu xitaa ku dhintay, maxay macna samaynaysaa in qof reer Somaliland la dilo oo bilaa macno lagu dilo, oo waxaan waxba ka jarin lagu dilo, oo been iyo huuhaa lagu dilo? waxbaan tabanayaayo waxa la qaybiyo oo waa sax. dadku hadday jiraan inaanay wax la kala bursanayo, anigu wax bursi waxaan u arki lahaa matalan dhulka aan ka soo jeedo haddii aanu iskuul lahayn, haddii aanu cusbitaal lahayn, haddii aanu dabdamis lahayn,
waxyaabaha noocaasa haddii aanu lahayn xaqdaraan u arkaya waanan ka doodaya laakiin reerka iyagu wasiir ma leh maxaa iga saaran wasiirka reerka waxaad u malaynaysaa hadduu biri cira iman lahaa inuu habar yoonis jeebada lacag ugu shushubi lahaa may shilinkaama soo gaadhin aniga shilin igama soo gaadhin aniga waxay wax iga soo gaadhayaan inuu dalkaygu nabad ahaado inaan magaaladii aan ka soo jeeda iyo dhulka aan ka soo jeedo gobolka daad madheer aan ka soo jeedo in baraaga loo qodo in ceela loo qodo in iskuul loo sameeyo inay dhallinyarada dhulkii aan ka soo jeeda degani waxbarasho helaan laakiin taa cid ku doodaysaa ma jirto waxa kaliya he lagu wada doodaya waa reer hebel baa naga wasiiro badan reer hebel baa naga kuraasi badan kursiga nin la siiya adiga muxuu ku siin la ma waxaad u malaynaysaa inuu maanta ninka kursiga saarani reerkooda oo dhan jeebadaha lacag ugu shushubo maya hadduu cid wax siiyo waa inta faamiligiisa asaga ku wareegsan sida adiga iyo aniguba aynu yeelno anigu dowlad baan u shaqeeyaa mushahar baan qaataa lacagtaan qaato reerkayga waxba kama soo gaadha ubadkaygaan ku korsadaa taydaan ku dabberaa laakiin shaqada la ii diray iyo dadkii laan u shaqaynayay shaqadoodii baan u qabtaa faa'iidada igu qabaan waxa weeye inaan shaqadoodii u qabtaa madaxweynaha waddanku faa'iidada keliyuu keeni karaa waxa weeye inuu dadka wixii loo diray inuu waddanka amnigiisa sugo inuu caafimaadku shaqeeyo inay iskuulladu shaqeeyaan in wadooyin la helo laakiin inay wasiir la helo wasiirka la helaa kuwa xitaa laga soo doorto kulayla cudubtila bahal kulayla waa samar bahal kulayla baa nahaya saddexdii cisho u dambeysay marka waa marka waxa weeye haddii doodu ay tahay annaga gobolkayaga intaasoo iskuul baa ka maqan laakiin intaasoo macani waxaasaanu xaq u lahayn oo laga maqan laakiin wasiirada ninka ood weyne laga soo doortaa maba yimaada ood weyne ee hargeysu iska fadhiistaa marka ilmaadeerayaalow wasiir reer aan intaasoo madaxa macnii dad madax isku haysta madaxdaynu isku haysana waxba inooma keenayaan madaxda waxaa laga rabaa in ay waddanka maxaanku idhaahday cidduu doonaha ahaado reerku doonaha ahaade haddii caafimaadka loo xil saaray waa inuu waddanka caafimaadka wada gaadhsiiya hadduu beeraha ku shaqo leeya waa inuu ummadda beeralayda oo dhan taageera inuu kula abtirsado iyo inuu ila abtirsada wax macno ay samaynaysaa ma jirto abtirsiimo meel lagu gaadhaa oo wax lagu helaa ma jirto waddanku waa inuu sharci lahaadaa sharcigaasi waa inuu sarreeya sharcigaasi inuu sarreeyana giddigeenba mas-uuliyad baa inaga saaran in la doodo iyo in la isfahmo waa muhiim inay dadku cabashadooda sheegaan waa muhiim laakiin cabashadaada qori kuma sheegi kartid haddii aan cabashadaada istiraahdo qori ku sheeg waxaad tahay cadow waxaad tahay kriminaal sida cadowga loola jihaatamayaana lagula jihaatamaya ama abtirsiimo sheego ama waxa doonta sheego hadduu khatar waddanka ku hayo buuraha ha ku jiro waa in lagu ga-doomiyo haddii uu wanaagga qaadan waayo taasaan anigu aaminsanay qabiil ahaana anigu ila qabiil yahay laakiin anigu inuu ina hebeli kursi fadhiisto waxa iiga muhiimsan in cabdidheere iyo harasheekh ceela laga qodo in beeralayda gatiitale iyo galooley ay jaanis helaan ay dhulkooda ku beertaan taasaa aniga igala muhiimsan inuu nin reer hebeli kursi fuulo un waxba aniga ii keenayn ina aqoon mid kastaa marka uu kursiga ku fadhiisto dadkii uu ka yimi wuu dafira afkuu taaga adna qabiil baad ku soo saartay qabiil baad ugu ololaysay
horta in la ololeeyo ama qabiil ha lagu ololeeyo ama macnihii wax kale ha lagu in la ololeeyo waa muhiim laakiin waxaad u ololeysaa qofka aad isleedahay danta dadkaaga iyo dalkaagu wadaya qofka aad isleedahay halkii aad ka soo jeeday buu ceel ka qodaya halkii aad ka soo jeeday buu beeralaydeeda taageeraya halkii aad ka soo jeeday buu nabadeeda sugaya qofkaasaa kaaga baahan inaad taageerto nin cadowa oo hubsita oo doonaya inuu ummad isku jabiyo in dad imise sanad ahaysan dad isticmaalo imise sana ayaa laydin isticmaalaya qabiil macnihii u raraanaysan qabiilku ma xuma in la isku soo dhaweystaa ma xuma in la isku taageeraa ma xuma laakiin in cadownimo iyo burburinta waddankaaga qabiil ahaan lagu adeegsado waa wax aada iyo aada u liita hadhowto waan ogay dad badan baa igu dhibsaday oo yidhi meelaad ka hadhadlaysaanu aragna waa maxay sidanaad wax u wadaa laakiin marka aan weydiiyey okay anigu sidanaan wax u wadaa anigu waxaan rabaa somalilan oo nabadgelya geeska gees anigu waxaan aaminsanay inanka u dhashay maxaan ku idhaahdaaye boorame iyo gabiilay inuu inan reer somalilan yahay waxaan aaminsanay inanka laascaanood iyo buuhoodle u dhashay inuu nin somalilan yahay waxaan aaminsanay qof kasta oo wanaagga iyo wadajirka reer somalilan ka talinaya kaasaanu abtirsiin wadaagna laakiin adigu waxaad ii keenaysaa ood aniga igu dhibsanaysaa waxa weeye maxaad reerkeenna u taageeray reerkeenna 100% baan taageersan inay habaryoonis waddanka maamusho 100% baan taageersan laakiin ay xabad ku maamulaan iyo burburin iyo barakac ay ku maamulaan diyaarumay in la dooda maskaxday furfurtaa qofka bini'aadanka abay kobcisaa garashadaada iyo dadnimadaada kor u qaadaa waa haddii aad tahay qof markuu doodayo wuxuu uu ka doodayo garanayo oo ka soo shaqeeyo oo fahansan laakiin haddii markii aad dhalatay qabiil lagugu qufulay dabeedna qabiilkaasi uu kugu qufulan yahay ilaa qiyaamaha waxaad noqonaysaa qof garashadiisu gaaban tahay maskaxdiisuna aan haba yaratay kobac samaynaynin dadkaasina meel kasta reer kastay ku jiraan kuwa aan aada u taageeri jiray dhegaysan jiray moodi jiray inay yihiin dad maskax furan oo haddana waxaan arkay leh garxajis wuxuu isaga soo habar wacday ilaa hargeysa gunteeda ilaa iyo ceerigaa wax ka jirana ma jira laakiin waa kuwa jooga ceerigaabo ama ceelof weyneele macnii waa la isugu kaaya tegay iyo waana la kareeyin bada adiguna la mid tahay dadka reer somalilan iyo guud ahaan soomaalida waxa ku badan warka ku tiri ku teenka waraanay hubsan waraana meel laga keenay ogay waraanay qofka keenay wuxuu yahay ogay ayay social media la soo fariistaan markaasay dabka huriyaan oo ay ummad isku diraan danta reer somalilan waxa ay ku jirtaa wadajirka iyo wanaagga iyo nabadda iyo wada hadalka adiga iyo aniga toonadani inuguma jirto qalalaase iyo dagaal iyo xoog iyo anaa reer hebel iyo anaa reer hebel wax ka jira ma jiraan waxa uu keenaysaa colaadu waa iskuulo la'aan waa dhaqaale la'aan waa wiilal dhintay oo waxay ku dhinteen haba yaraata ay jiro haddii aad isleedahay cid kale iska gad oo Soomaaliya adiga laga jeceliyay wille iyo bille iyo tolle inaan laga jecelay waa u simantiin Soomaaliya laakiin waxay jecel yihiin kharash bay ku bixinayaan dadaal bay ugu jiraan in la isku jabo oo reer Somaliland ay isku jabaan waxay ugu jiraan dadaal xoogan dadaalkaasina halkii uu la galaabay galayaan waqtigii markii uu riyaale haystay waddanka ayaan magaalada Hargeysa ka soo raacay diyaarad Dubai baanu socday
nin aan u malaynayo inuu ahaa reer Boosaaso ayaanu soo wada raacnay gaadhigoonu 2 kurso isku xiga soo fadhiisanay dayuuraddu ilaa Hargeysa markay ka soo duushay iyo markay soo fadhiisanaysay Dubai waanu murmaynay ninkaas wuxuu igala doodayay maxaa keenay inaa Samaroon madax ka dhigataan asagoo rajadiisu ahayd haddii reer Isaaq nin Isaaqi uu waddanka qabsado inuu toos ugu shubi doono koonfur awood uu u leeyahay inuu koonfur dadka ku geeyo asagoo markaa ku doodayay inaanu Daahir Riyaale Kaahin ku dhacayn inuu Soomaaliya ku shubo waddanka laakiin waxa u goysay inaanu ama Samaroon ha qabsato ama Habar Yoonis ha qabsato oo qof waliba uu ku qasban yahay rabitaanka ummadda reer Somaliland dadka maanta warfinaya garxajis ee reer Soomaaliya waddanka aynu jaarka nahay garxajisna danuma hayaan awala danuma hayaan ujeedadooda iyo waxa Ilaaha subxaanahu qaadirka ka baryayaan waxa weeye inay arkaan Hargeysa iyo Burco ololaaya waxa ay ku ducaysanayaan habeen iyo maalin waa in ay arkaan Hargeysa iyo Burco ololaaya marka haddaad taa suuro geliso haddaad isleeday taa suuro geli dee kaa yeeli mayno nin waddan kale ka soo shiidaal qaatay oo ka soo hub qaatay inuu Somaliland ku soo duulo dabeedna qabiil lagu taageero ma shaqaynayso waxa uu jabinayaa waa qabiilka waad sheegaysa laftiisa wuxuu guul darrada weyn garabka u saaraya waa Habar Yoonista aad sheegaysa waa kuwii waddanka u soo dagaalamay waa kuwii waddanka xoreeyay waa kuwii waddanka u dhintay ayuu rabaa in uu jabiyo marka haddii ay kula durkayso cadiifada yare ahaayeen reer hebel baa maanta meesha saaran waa ku nasiib darro ka saarani biruu ka tegaya kaa doonaysa adigu soo saar siyaasad la kaalay dhaqaalaha ku caawi dhaqaalahaaga ha ku bixinin in qoryo lagu iibiyo dad lagu dilo inkastoona filayn inay jiraan dad sidaas sameeya caare wuxuu ka soo shidaal qaataa meelo kale ma filayo inuu dad macni qabiilka uu ku abtirsadaa ay ku caawiyaan hub iyo xumaan laakiin waxaad kuu sheegayaa waxaad samaysaa haddaad doonayso waddanka inaad ka taliso xaq baad u leedahay inaad ka taliso cid kaa hor joogsan kartaana ma jirto laakiin waxa weeye inaad systemkeedii soo martaa waa inaad adigu is abaabushaa waa inaad adigu doorashada toos uga qayb gashaa waa inaad dadkaaga abaabushaa waa in aad meel kasta oo caalamka la joogo qofku xusbiga uu rabo dhaqaale wuu ku taageeri karaa markaa ku taageer haddii aad rabto inuu soo baxo ciro ku taageer dhaqaale ka taageer siyaasad ka taageer doodaha u samee aflagaadana u qaata laakiin markaad keenaysaanu idiin doodayo xitaa haddaanu asagu codkar ahayn waa inaad u qabataa ood u samaysaa qof codkara oo ka shaandheeya oo ka baadha waxa uu ku dooday laakiin haddii kelmad yaroo basiida aad ka jawaabi kari weydo matalan markii loo qabanayay doodaha ciro waxaa la weydiiyey reer koonfureed baa ku taageera waa kelmad iska basiida reer koonfureedkay taageerayaan anigu afkooda ma qaban karo laakiin mid baanu sheegayaa labada nin ee kale iyo anigaba waxa naga go'an gooni isu taagga waddanka hadduu odhan lahaa cidna kuma shaabadaysan Soomaaliya u socdaa waxa kaloo la weydiiyey haddii aad macnihii ay doorashada laga badiyo saddexda ninba waxa la weydiiyey haddii doorashada laga badiyo maxaad yeelaysaa labada kaleba waxay yiraahdeen waa qancaynaa asagu wuxuu yiri hadday si caadi u dhacdo isla markaaba maxaa loo fahmay inuu murmi doono marka tolkayow
dad doonaysana waddanka ka talisaan siyaasadda iska soo dhisa xabad waxba ku keeni maysaan majority-giina inaan xabad rabin waa ogahay laakiin waxaa laydinku shaabadeeyey dad koonfur u socda waxaa laydinku shaabadeeyey dad dalkooda u cadawa markaa taa iska dhaqdhaqa waxa weeyaan ummaddu wax waa la ysku hayn karaa wax waa la tirsan karaa laakiin tirsashadu ma gaadhsiisna meel xabad loo qaato tirsashadu ma gaadhsiisna meel xabad loo qaato waddankan joogo 80 sano waxaa ka talinayay xusbiga shaqaalaha labadii doorasho ee u dambeysay ayaa laga qaaday laakiin dalkooda may dumin waxay tijaabiyeen haddii aanay waddankii ayagu xukumi aanay lahayn ra'iisul wasaaraha inay helaan si kale oy awoodda waddanka uga mid noqdaan Somaliland haddii ay sheekadu noqoto qabiil waxay noqon doontaa waxaan kula talinayaa dadka in la sameeyo qorshe ah inay labada xusbi ay isu tirada dhowi maamulka waddanka qaybsadaan awoodda waddanka qaybsadaan waxaynu u baahannahay wacyigelin fara badan waxaa loo baahan yahay in waddanka shacabkiisa wacyigelin fara badan oo kuwa tuulaha jooga oo kuwa magaalada jooga ay u sinaadaan waddamadan reer galbeedka hadda waxaa ku soo kordhay waxaa jira dhulkii baddu fadhiday aan barafku fadhiyay inuu barafkii ka dhalaalay barafka dhalaalay wuxuu keenay in ay macdan badan laga helo sida baadroolka oo kale waddamadii way ku muransan yihiin macdan dhaqaalaha haddaba Norway waxaa durba loo bilaabay caruurtayada in durba aynu in 3 jeer aynu taajirnay 3 jeer halkii aynu joognay ka badan inaynu taajirnay laakiin dhaqaalahaas xuduudaha dadka degan way isku haysaystaan laakiin dad badan ayaa aaminsan in la isku dili doono laakiin la iskuma dili doono sababtoo waxaan ogahay haday matala Norway xuduudeeda Ruushka iyo ay isku qabsadaan iyo Norway matalan ay isku qabsadaan inay iman doonto maxaan qaataa maxaan ka tagaa haddii ay noqoto inay ku adkaysato qolo halkaa inay odhan karto qolada kale okay way dubaan uga soo yara guurayna si aanu dalkooda khalkhal u gelin si aanay ubadkooda u qaxin si aan dagaal u dhicin inaguna meelan waxbaba oolin oo bannaan oo qalalan ayaynu rag ku laynaynaa ubad ku qaxinaynaa marka dub ha la isugu noqdo oo ha la fikiro dagaal cid ay dani u jirtaa ma jirto reer ku guuleysanaya reer ku guuldaraysanayana ma jiro giddi waa lagu wada guuldaraysanaya guul iyo gobonnimaan idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu